ku soo dhowaada qaybtii ugu dambaysay ee waraabihii la weysanaa. habeen walwal iyo rafaad uu soo maray kadib, Mizimo waxa uu ku soo laabtay godadkii Olemba. xaalad wanaagsan ayay ku jirtaa, mar kale waxa ay qabsatay ugaar. Mizimo midaan fursad ayuu u arkay. xirfadiisa iyo geesinimadiisa ayuu adeegsaday. laakiin qalad ayuu galay. kama baqaysa waraabo keligii socda. Mizimo waa geesi, waxaana ka go'an in uu qaniimadiisa ilaashado. duulaanka uu xalay ku soo qaaday shabeelkii labka ahaa ayaa hoos u dhigay kalsoonida uu naftiisa ku qabay. Mizimo waxa uu la soo haray caloosha, taa oo ay ka buuxaan waxyaabo fara badan, waana shay aan qiimo saas lahayn markii loo eego qofka hilibka cuna. Mizimo gaajo ayuu u dhiman doonaa, waa haddii uu heli waayo koox ka caawisa ugaarsiga. godadku waxa ay ku dhaliyeen rajo been ah, sidaas darteeda Mizimo waxa uu go'aansaday in uu tago. dhulka koonfur bari ee webiga Wangua biyihiisu waa dhanaan, waana dhul aad u biyo badan, xitaa xilliyada jiilaalka ah biyo ayaa laga helayaa. waa meel u wanaagsan xayawaanada ooman. waana goob ay yimaadaan qaar ka mida dhurwaayada labka ah ee ka tirsan kooxda Jimboy. Mizimo xaggooda ayuu u sii tallaabsanayaa. dhurwaayada labka ah ee lamaana raadiska ah waxay ahaayeen asagoo kale kuwa soo galooti ku ah kooxda Jimboy, waxay kaga soo biireen isbahaysi ay la yeesheen dhurwaayo kale. maadaama candhadheeryo ay hoggaamiyaan reeraha dhurwaayada labka ah, ayagoo isgarabsanaya waxay doorbidaan inay nolol ahaan ka fogaadaan reerka. Mizimo kooxda hoggaanka haysa waa uu ka fogaanayaa, waayo waa ay ka maqaam sareeyaan. laakiin waxa uu arkay dhurwaayo yar oo aan tixgelin badan lahayn, kuna cusub kooxda Jimboy. dhurwaayadu deegaankooda si wanaagsan ayay u kala bartaan. Mizimo urkooda ayuu soo raacay. jihada ay joogaan ayuuna ogaanayaa. dhurwaayada lamaana raadiska ah sayntooda ayay kor u qaadayaan, taasoo ay ku muujinayaan xamaasad. dhurwaayaduna sayn kor u qaadista waxay kala jeedaan laba mid, in ay cajabisay candhadheerta ama in ay dagaal geli rabaan. dhurwaayada lamaana raadiska ah sayntooda ayay raariciyeen. Mizimona waa uu soo raacay. mar walba waa uu u soo dhowaanayaa si ay u fahmaan oo ayna u aqbalaan. laakiin waraabahan geesiga ah oo keligii socda waa loo oggolaanayaa in uu ku biiro kooxdan. waa isbeddel wanaagsan oo uu Mizimo ku sameeyey noloshiisa. maadaama uu ku biiray dhurwaayada lamaana raadiska ah, waxa uu qaaday tallaabtii ugu horeysay uu kaga mid noqon karo kooxda Jimboy.
saaxiibadiisa cusub horay waxa ay u ahaayeen kuwo asaga la mid ah oo mar dambe ayay ku soo biireen kooxda Jimboy. haddeer waa uu nasan karaa maadaama uu helay saaxiibo wanaagsan. mid ka mida dhurwaayada ayaa waxa uu eegayaa in ay libaaxyo soo galeen. waxaa la arkaa in uu helo ugaar wanaagsan. dhurwaayada lamaana raadiska ah waxay u dhakanayaan ugaar fara badan. Mizimo waa uu dhaqaaqayaa. howlgalka ayaa bilowday. laba ka mida dhurwaayada weerar ayay qaadeen. midka saddexaadna gadaal ayaa looga tagay. waa cadow. laakiin ugaartan waa laga tiro badan yahay. dhurwaayada lamaana raadiska ah si wada jir ayay u weerarayaan ugaarta. Mizimo orodka ayaa ku yar laakiin taatika cusub ayuu la yimid oo ah in uu jidgooyo ku sameeyey ugaarta. kooxdiina waxa ay ku guulaysteen in ay si wada jir ah u qabtaan ugaarta. maalinkoodii ugu horeysay saaxiibada waa ay guulaysteen. Mizimo waxaa loo kaxayn doonaa goobta ay joogaan kooxda Jimboy si uu ula kulmo xubnaha ka tirsan kooxdaas. nolol raaxo leh ayuu ku sugnaa wiilka Mala, laakiin middan waxay uga roon tahay in uu keligiisa duurkan ku noolaado. Mizimo haddeer waxa uu ka mid yahay kooxdan, waa uuna dharagsan yahay, waxaana u soo laabatay farxaddii iyo firfircoonidii. dhurwaayada lamaana raadiska ah haddeer waa ay cayaarayaan, waxayna xoojinayaan xiriirka ka dhexeeya. isbuucyadan soo socda, Mizimo waxa uu xoojinayaa xiriirka kala dhexeeya xulafadiisa cusub, waxaana lala kulansiinayaa candhadheerta hogaamisa kooxdan si loogu aqoonsado in uu ka mid yahay kooxda Jimboy. waraabahan la weysan yahay waxa uu soo jaray masaafo dheer, waxaana u bilaabatay qayb ka mida noloshiisa. waxa uu ka soo bilaabayaa qaybta ugu hooseysa kooxda Jimboy, marna kama mid noqon doono qoyska hogaamiya kooxdan, laakiin waxa uu helay qoys cusub.